يعني محاضرة بس وتلقينا هالكيران ومرة يا ليدي لأن يرضي بقرصة ويدي قرصة دخوله هذا قرصة ليه مركها هذي اللي جرى قرصة runtii dhallinyaranimadu waa wakhtiga ugu fiican ee nolosha ka mid ah waa wakhtiga uu qofka bini aadamkii dhiso adduunkiisa iyo aakhiradiisaba waa wakhtiga keliya aan cidilo lahayn qofku markuu weynaado xidhiidhkiisa tiro bata mujtamaca xidhiidhku la leeyahay ku tiro bata marka waqtigiisa inta badan isagu ma laha dad kala leh laakiin qofka dhalinyarada ah waa qof isagu hanta waqtigiisa dhamaanteed waana waqtiga ugu fiican ee uu qofka bini'aadamkiisa dhisi kara adduunyo aakhiradiisaba ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام markuu aakhirada ninka dhalinyarada ka waramayay wuxuu ku tilmaamay dadkii عرش الرحمن كهرسنا يا مالنتا قيامه ددكو كديدن يحي او كنتن كونو سنادود لا تاغن يحي او خلقيغا لا حسابينيو او قف وليبا وحو غيستي مالنتو قان غاداي الى iyo maalintu ka dhimanayo wuxuu sameeyay wuxuu dhageystay il iyo dhag iyo qalbi iyo meel waliba waxay sameysay la xisaabinayo waa xisaab aad u adag qofka bini'aadamka haysata maalinta kaleedkaasi jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay 7 qof oo kadeedka iyagu aan ku jirin ilaahay carshigiisa harsanaya oo xagga alle subxaanahu wa tacaala laga maamusay 7da waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fi cibaadati illaah nin dhalinyaro ah oo ku barbaaro ku kobcay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa da'daasi waxay tahay da'da mabaadi'da la xambaaro haddaad aragto dunida isbedelada ka dhacay taariikheed haddaad baadho dhammaantood da'daasaa samaysay xataa kuwan galbeedka thawraadkii ka dhacay thawradii faransiiska tii ka dambaysay tii shuuciyadda ardada jaamacaadka ay ahaayeen dadka ugu badan ee isbedelada dunida sameeya waayo waa dadka ugu badan ee bay yidhaahdaan riskiga waajihi kara qofku markuu yara gaboobo uu xisaabtamaa uno talow caruurtii iyo reerkii iyo kaariyeerkii waxbuu ilaaliyaa kaloo masaalix kaluu daydaya laakiin waxay yidhahdaan qofku markuu dhalinyarada yahay waa riski taker ولذلك ودأد مبادئ قادة مركن لنا هاي ودأد النبي محمد وهيلسي عليه الصلاة والسلام صحابة دي كوات 10 المبشرين انت بالنبي كوينا نبي محمد فرتن شربا لو صادري 10 المبشرين وح فرتن غاريكم جيري ابي بكر با وينا تدوي سدن شربوها ملا عثمان با كخيغا افري صدن بوها عمر تدوي لا تنشربوها سعد بن ابي وقاص تدوي تبنشربوها زبير بن عوان دوري تبنشركاسوها علي سو طبن كابو كيرابا لا يراهدا طلحه بن عبيد الله سيدو كلوها أبو عبيدة بن الجراح أفريا لا تنشربه مركا لا اسكو صودا دوبو رغي دينتا تن و هلغمي ee xambaaraya siday shabaab bay ahaayeen dhalinyar bay ahaayeen odayadii quraysheed waxay ahayd kuwii diinta ka hor yimid sanadiidu quraysh wixii marka dambe ka islaamay mooyaan Abu Sufyaan iyo baa ka islaamo markuu 12 sanadood waxa la diriirayay buu islaama Abu Jahl iyo de Mughira ibn Shu'ba kuwaasina waa ku dhinteen ba مغيرة بن شعبة ما صحابي الوليد بن مغيرة وكل انتين سناديد قريش وبي بن الخلف وحي كل انتين قال لماذا يقول دين تورتاقل وحن مركا وقدر لي كو اللي يراد هرتوين دين تودو فكران والشيء كوبات آخرة دو ديني كفكران يوحي لكل مدونا نولش أدون مركيتي ينولش آخرة وحيابا كميدة guurka kamida oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay qofku haduu guursado nisfu diinihi inuu u dhameystiranta falyattaqillaha fi nisfi al-akhir nabi ilaahay uga cabsan nuska soo haray dadku inta badan deewa afka iyo farjiga waxa inta badan rabshadu ka raacda waxa la cuno iyo galmo
haddii uu qofku guursado nebigu wuxuu ku tilmaamay nisfu diinihi inuu kamishay diintiisa nuskeeda inuu ilaashaday waladiina hum lifuruujihim xaafiduun qur-aanka in badan baa ku aragteen marka laga warramayo jannada ulaa'ika fii jannaatin mukramuun kuwa lagu tilmaamayo ama alwaarisuun jannatulfirdowsa kuwa dhaxlaya sifaadkooda waxaa ka mida maxay kuwa farjigooda xifdiyey baa layidhi farjiga sida ugu fiican ee loo xifdiyaana waa kuu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam yaa macshara ashabaab man istataaca minkum an yatasawaj falyatasawajuuna war dhallinyarooy buu nebigu yidhi guurka dadkao dhan baa u baahan laakiin iyaga si gaaraa loo tilmaamay odayadaa u baahan da-da dhaxaa u baahan guur waa loo wada baahan yahay iyadoo loo wada baahan yahay dadka uu nebigu dhiiri geliyey waa dad gaar ah lama odhanin yaa ayuha shuyuukh man istataaca minkum azawaaj falyataزawaj lama odhan laakiin waxaa la yidhi iyadoo lala hadlayo macaashir shabaab dhallinyaroy man istataaca minkum albaa'a ciddii awooda inay guursato baa-adu waa waxyaabihii yareeraha ku baxayay guurka cidda awooda falyatazawaj buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha guursado waayo fa innahu axsanu lilfarj waqadu lilbasar nebigu wuxuu ku sheegay ishaaduna inay dhowrsoomayso farjigaaguna inuu dhowrsoomayo waxaa la yidhahdaa qofku guurka wuxuu ka helaa sakan deganaanshiiyo saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tili wamin aayaatihi inta ilaahay aayaad suuraddaasi wamin aayaatihi baa ku badan ilaahay wuxuu ka warramayaa aayaadka waaweyn ee ilaahay ku tusinaya subxaanahu wa tacaala aayaadkaa waaweyn waxaa ka mida baa ilaahay yidhi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha in ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin abuuray lamaane idinka dhigay maxaa la ydinka dhigay litaskunuu ilayha baa ilahay yidhi sakanka markaasuu qofku dareema oo markuu xasilo sakanku waa min asukuun buu ka yimi waa ina xasishaan daraaddeed buu nebigu ayuu qur-aanku tilmaamaya idan guurku wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo oo qofka muslimka ahi maadaama layidhi diintiisa ku dhammaystirmaysa oo farjigiisa ku xifdimaya oo naftiisa sukuun iyo xasilooni dareemaysa waxa uu qaalisana qof bini aadamay uu helaana waa ubad adduunka marka la joogo waxa dhex yaalla almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati addunya zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniin waxa ziinada adduunka taallana waxa u qiimo badan waa qofka bini aadamka ah dee meesha qof bini aadama ilaahay uu kaa siiyaana waa inaad guursato maxaa guurka hortaagan malaa taasaa ka macaan inaynu wax ka tilmaamno maxaa dhalinyaradu u guursan weyda wadanadan aynu joogno cultureka ka jira dhibaatooyinka uu dhalay oo ah dhibaatooyinka xadaaradu ay samaysay ayaa ka mid ah inuu guurku yaraado sababo badan daraaddood kow sabab dhaqaale waxbaa ka jira oo waxay yidhaahdaan markay taariikhda yurub ka warramayaan waqtigii wax la dhali jiray yurub ay badan jirtay ragga waxa la siin jiray